السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب ساكي وعن فلايا إن لو دنيا waxa intaan isku keenay ay ka hadlayaana ay tahay wax xaqoodii ah ee dulmi lagula kacay. waxaan rabaa marka inaan ka soo bilaabo bilowgii iyo dhismihii maamul goboleedka Hirshabelle bilowgiisii ayadoo lagu kala qaybsan yahay dadkii u dhabar adeegay ee laf dhabartu u ahaa waa annaga sidii ay ku dhismi lahayd. Hirshabelle dadkii u dul qaatay ee dhismaheedii iyo wanaageedii ka talinayana waxaan ahayn annaga. cid kasta oo caroota ama cid kasta oo buuqda ee wax tabanaysana dadkii ka daba tagay sidii Hirshabelle u dhismileed ka shaqeynayna waa annaga. Hirshabelle maanta ma ogolaan karno in burburkeeda laga shaqeeyo ama dad dana qaasa leh sida wasiir caadlo oo kale inay maanta burburka Hirshabelle ay ka shaqeeyaan annagana aan ugu dul qaadano wax suurtagalaya ma aha. Hirshabelle ma ahan wax inta hool la isugu yimid oo la iska aasaasi ma ahan wax inta laba qofood oo kaliya ka tashatay ee la dhisay ma ahan. waa wax ay ka wada tashteen dadka degan Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ogolaanshiyo ay isla ogol yihiin lagu dhisay waaye Hirshabelle. waxaan ognahay maalinkii Hirshabelle la dhisay ee caasimadiisa laga dhigay Buulburti wasiir caadle iyo madaxweyne waare iyo Cali Cabdullaahi Cusable iyo Cali Guudlaawe inay ahaayeen dadkii soo wareejiyay magaalo madaxda oo ahayd Buulburti ee u soo wareejiyay Jowhar. si kasta ay ku dhacdaba haddana waxaan door bidnay inaysan Hirshabelle naga burburin aan ku qaadana sidaas laftirkeeda inay magaalo madaxda noqoto caasimadii ay noqoto Hirshabelle Jowhar. doodii iyo hadalkii meeshaasi ka dhashay in ma nagala siiyay 6 xildhibaan waxay ahayd wax cadaalad darro ah oo annaga nagula sameeyay. labadii xildhibaan oo Xasan Sheekh Maxamuud oo ku daray oo maslaxadii ahaydna markii aan geysanay in la yiraahdo jooga ilaa waqtiga xaadirkan ay labadii xildhibaan banaanka ay ka taagan yihiin. waxa hor taagan oo ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Cusmaan Barre. dadka hor taagan waxa ka mid ah Sheekh Cusmaan Barre. maanta Hirshabelle waxa hogaamina dad ka shaqeynaya Hirshabelle sidii ay ku kala tagi lahayd, Hirshabelle sidii ay u kala burburi lahayd, Hirshabelle sidii maamul cusub iyo nidaam cusub oo kale hor leh ay dadka deegaanka ay u kala yeelan lahaayeen. waxaa imaatay in la is aamini waayo, waxaa timaaday in la is ixtiraami waayo, waxaa timid in la wada tashan waayo. waxa xildhibaano loo sameeyay, wasiirro loo dhisay, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo gudoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa intaasba loo marayay waxay ahayd in dadka wada tashi uu ka dhaxeeyo wax aan laga tashanina inaan ma aragtay lagu dhaqaaqin. tii ayada ahaydoo taagan yaa waxaa timid waxaad ka warqabtiin magaaladaas Jowhar iyo Xamar inta u dhaxayso si nabada in lagu maray. saaki la taagan yahay lama mari karo. shacabkii dhib ku qaba iska daa dad kale oo mas'uuliyiin. taasna waxaa sabab u ah maamul xumada ay meesha ku hayaan madaxda ugu sarreeyay Hirshabelle. Allah u naxariisto wiilashii ciidanka ahay ee ku geeriyooday
isbuucii hadda la soo dhaafay iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii wadooyinkaasi intay marayeen ku dhintay Allah u naxariisto sidoo kale magaalada Jalalaqsi waxa ka dhacday shaqaaqadaasi oo amisom iyo dad ka mid ah dadka deegaanka ayagana waxaan leeyahay walaalayaalow ha la isku dulqaato hana la isku dhimriyo wanaaga iyo walaalnimadana ha laga shaqeeyo ayagana inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah caafiyo waxaan rabaa inaan u soo daadego cadaalad darro badan anagoo tabanayno in maanta la yiraahdo haddana waxaa la dhisaa golo deegaan absolutely wax suurtagal ah ma aha in maanta la yiraahdo golo deegaana la dhisa annagoo og cadaalad darradii shalay nagula kacay ma aqbalayno maanta in golo deegaan la dhiso guud ahaan Hirshabelle ma aha waxa aan ka hadlayno Buuliburta oo kaliya ma aha waan ku celinaa waxa aan ka hadlayno ma aha Buuliburta oo kaliya guud ahaan Hirshabelle beeshaani inta ay ka degan tahay ma ogolo waqti xaadirkan la joogo in la dhiso golo deegaan sababtoo ah waxaan tirsanaynaa cadaalad darro badan warbal fiir degmadan oo adiga aad degan tahay yaa gudoomiye degma ka tahay inta kale yaa ku xigeenna ka Jalalaqsi tag hal gudoomiye ku xigeenna tahay gobolka tag hal gudoomiye ku xigeenna tahay marka ilaa baashaasi ay ka timaado cadaalad sax ay ka timaado wax Hirshabelle oo golo deegaan laga dhisayo annaga aan waafaqsanahay haba yaraatee ma jirto taasi waa taas waxa kale oo sabab aan ugu dhigaynaa xaaladda amni war Jowhartii shalay markii madaxda idinlaga dhigay nabad yaa maanta nabad yaa waay cid aad wax u dhisaysaan marka yaa waay dadka ogolaanayo in nidaamkii cadaalad darrada lagu dhisay maanta haddana cadaalad darro kale in laga sii shaqeeyo wasiir Caadlow dadka aad meesha geysay Buuliburta ee raba inay golo deegaan dhiso dadka seminaarka u hayo meesha ka soo wad hadaad nabad rabto walaalnimo rabto gudoomiyihii degmada Buuliburta oo waan ka qaaday aad tirina booskiisa ku soo celi markaasaan wada hadlayna taasina waa taas intaas kadib waxaan rabaa dadka xildhibaanada safarkii ay galeen iyo wasiiradii oo balad weyn ahaa oo guul badan ay ka soo hooyeen aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin shaqadoodii ay guteen haddana waxaan ka rabnaa wixii Hirshabelle noogu maqan ee cadaalad darre aan tabanayno inay noo soo dhiciyaan annagana aan ugu faataxayno halkaasina ma aragtay Hirshabelle dhismaheedii iyo wanaageedii aan ka shaqeyno taasi waa taas waxaan baaq dheer u diraa marka saaxiibadeeda golaha duubabka dhaqanka ee Hirshabelle saaki waxay u baahan tahay samata bixin aan isku nimaadno aan ka tashano sidii arrimahaasi lagu xalli lahaay Hirshabelle maanta badbaaday rabtaay aan isku nimaadno aan tashano aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi